قفك الزاني وحيالها إلهي سبحانه وتعالى قبل الآخرة وكو عقابه وحاكمده عمر الدقدقة أيها كمده وحاكروا كمده إن إسونا كما تدين تدان سيدو إسونا أزنيستي إن إلهي كو عقابه أهل كيسة متكلو شيطان إن إلهي إساقنا وقارت أقريب وأهل كيسة لغا زنيستا أساقنا hadduu haweeney la qabo uu ka zinaysto isagana xaaskiisa in laga zinaysanayo gabar hadduu ka zinaysto la dhalay isagana gabadhiisii in laga zinaysanayo kamaa tadiinu tudaan sidaad u dhaqanto ayaa lagula dhaqmo cuquubaadka yacni lagu ciqaabayo adduunyada ayay ka mid tahay walidaalika waxau yidhi nin shaacira ina الzinaa daynun fain aqraltahu kaana alwafaau min ahli beytika faclami إن الزنا دين وحور الزنا الدين كوتا فإن أقرضته هداد قف أماهسه كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي وحد وقاتا أهل بيتك دينك لغا جريتون دينك لغا جريتون وقال لازم وحاول يقفك الدوب الزانية هي السجن الدنيا وحياله وكو عقابه وحاكمده إن السجن أهل كيسي قويس كيسي سداس وكلا الله فدرينه gabdhaha kale siduu u fadareeyay oo cirdigoodii iyo uu ugu tuntay oo akhlaaqdoodii iyo mustaqbalkoodii uu baabiyay sidaas oo kale asagana gabdhihiisa in loo gelayo inna الzina daynun fa in aqraltahu kana alwafaa'u min ahli beytika faclami ahlu beytkaaga ayaa laga jaray waxaa imaamu الbazaar kitaabkiisa musnadka uu ku wariyey wa ina furuuja الzunaati لتؤذي أهل النار بنتن ريحها إنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإن فروج الزنات كو زنيست عورده لتؤذي أهل النار بنتن ريحها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار ككل بتونا يقرمون كفرجوا ذا ملحدة يديك كقول قرية ذاتك كلو الدنبية كلا جلي وزنا الجلين وأهل النار كها سنك كقبسلا وحيليه ربي يو waxaan maxay tahay soo karay waxaan naarta nagu dhibay oo cuquubadii iyo cadaabkii haystaba nooga darnaaday muxuu yahay markaas waxa la leeyahay waa furuuju zunat waa dadkii zinaystay cawradoodii malaxda iyo dheecaanka ka shubmaya way qarmuunka arkaysa marka waa cuquubada khaaska ah ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala aakhirana uu ku ciqaabayo adduunyadana in umri degdeg lagu rido amraad iyo xanuuno aan la garanayn ayaa ilaahay ku salidaa subxaanahu wa tacaala xanuunkan hadda adduunku uu daawo ula yahay la yidhaaho addaacuun almucaasir daacuunka casriga oo loo yaqaano aidiska loo yaqaano inta badan boqolkiiba 95 wuxuu ka dhashaa zinaduu ka dhashaa way dhici kartaa asbaab kale inuu qofku u qaado oo maalan qof yacni xanuunkan qabay oo viruskan qabay in maaragtaay maqas uu ku jartayo yacni dhididkiisa ama dhiiggiisu uu maqaska taabtay in asagana loogu jaro way dhici kartaa haddii ilaahay u qadaro laakiin taasina waxay ku xiran tahay maqaadiir ilaahay in ilaahay u qadaray subxaanahu wa tacaala way dhici kartaa haweeneydii yacni markay umulayso maqas lagu jaray haweeney kale oo xanuunkan aidiska qabta in iyadoo beri ah oo zinaysan oo waxyaalaha aan shaqo ku lahayn in si khalada maqaskan iyadana loogu jaro dhiiggii iyo dheecaankii isagoon laga gubin oo jeermiskii aan laga dilin in iyadana lagu jaro sida ay ku qaado waa suurtagal waxyaalo naadira taasoo kale aidisku uu ku dhici kara laakiin boqolkiiba 95 wuxuu ku dhacaa dadka xaaraamta yacni galmada xaaraanka sameeya oo cumrigooda ilaahay ku dedejinayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qabla alaakhira noloshoodii uu ku ihaanaynayo adduunyada soomaalida hadda dembiyada ku yar ayay ka mid ahayd zinadu xilligii hore soomaalidu waa isdhici jirtay yacni waa islayn jirtay dhiigga waa daadin jirtay laakiin jariimadan iyo daahiradan zinadu way ku yaraan jirtay aad ugu yaraan jirtay laakiin waqtiyadan dambe markii uu soo kordheen filimadan iyo facebooka iyo waxyaalaha internetka dhalinyaradu ay isweydiirsanayaan oo haweenkii iyo raggii iyo ficil wixii sameynayaba dhalinyaradii ay fiirsanayaan markay ku ta'asureen oo ay ku saamoobeen ficilkii oo kale inay sameynayaan ayaa shaydaankii u qorxiyey taasi marka waxaa ka dhalatay wadankii xanuunkan aidiska inuu nisbaba hadda ku yeesho percentage inuu ku yeesho oo la yiraahdo boqolkiiba Soomaaliya imisa viruskaas ka xambaarsan
saasa hadda percentage u yeeshay yani nis buu yeeshay awal lagama oqoon jirinba nabigu salى الlahu عalيه wasalam xadiiska ibnu maajah uu warinayo wuxuu ku yidhi lam tadhar الfaaxishaةu fii qowmi xatىa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim الطaacuun wاlأwjaacu alatii lam takun madat fii aslaafihim aladiina madow nebigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi haddii qola faaxishada iyo zinadu ay ka daahirto ilaahay wuxuu ku imtixaanaa xanuuno awowayaashood aysan garanayn awowayaashii hore xanuunno aan ku dhicin jirin oo weligeed awowayaashood aysan maqlin ayaa ilaahay ku ebteleeya subxaanahu wa tacaala waxaad arkay hadda maaragtaa yani in dadkii la xanaanaynayo oo soomaalidii qaybo ka mida xanuunkan intuu ku faafay galmadan xaaraamta boqolkiiba 90 wuxuu ku yimaadaa zinadana uu ku yimaadaa ilaahayna wuxuu ku ebteleeyaa subxaanahu wa tacaala kuwa xaaraamta iyo intihaaku xurumaad samaynaya ayaa lagu ebteleeya waxaa kaloo qayb ka mida waxyaalaha zinada faafinaya waxyaalahan dhallinyaradu ay isku tuurayaan waa xaaraan dhallinyaradu waxyaalaha ay isku tuurayaan oo facebooka la isugu tuurayo ama yani shabakaadka cankabuutiya waxyaalahan loo yaqaano la isugu tuurayo waa qayb zinada ka mida haweeney yani maalan yani wixii samaynaysa ama qaawan haddii qof aada u tuurtid dembigii iyo fidnadii qofkani uu ku fidnoobo adigaa laguu qori isagana waa loo qori goonidiisa ilaahay subxaanaه wataعaalى wuxuu leeyahay jala jalaaluhu ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishaةu fi اladiina aamanuu lahum cadaabu aliimu fi اdunya wاlaakhira fi اdunya wاlaakhira yuxibuunu ilaahay ka cabiro kuwa jecel faaxishada iyo zinadu inay ku faafto yani iyagii ma aysan zinaysan laakiin way jecel yihiin zinadii inay mujtamaca ku faafto ayay jecel yihiin ina aladiina yuxibuuna أن تشيiع الفاaحشhaة في الذيiنa آaمنوا لهم عadاaب أليم في الدuنيا والآkhرة addunyadana ilahay wuu ku ciqaabay aakhirana ilahay wuu ku ciqaabay marka haddaad aragtid haweeney qaawan ama nin qaawan aad aragtid waxyaalaha faaxishada samaynaya layg ha saarin haddaad layg saarto zinadii aad faafiso ha sheergarayn haddaad sheergarayso ama layg aad saarto zinadii aad faafiso waxaadna soo geli aayadda ilahay uu leeyahay jala jalaaluhu ina الadiina yuxibuuna an tashiica الfaaxisha kuwa jecel faaxishadu inay faafto leanna waad faafinay mise qof aad u tuurin faaxishadii aad faafinayso marka waxaa weeye bahashani waa cuquubo ilaahay subxaanahu wa tacaala qabla alaakhira ilaahay uu ka daahirinayo mujtamacii ay ku dhex faafto xaddu zaani almuxsani haadaa midkani xaddu zaani almuxsan qiso yara waxaan rabay runtii kitaabkan dhexdiisa kitaabkan intii aan waday kitaabkan hadda inoo socda intaan waday haweeney markaan casharka ka baxay ayaa galab halkaa ii istaagtay haweeneydii ninaa la socda yani aniga weligey ma isdhehayn soomaalida waxaasoo kalea ka dhex dhacay ninaa la socda haweeneydii ninkan marka waxay leedahay bal sheekhow inuu iga furan yahay iyo in kale bal inoo fiiri sharciga inuu iga furan yahay in kale sharciga inoo fiiri muxuu sameeyaan waxay tihi ninkan markii hore wuxuu fiirsan jiray filimada iyo haweenka iyo ragga qaaqaawan oo faaxishada iyo zinada samaynaya waa ninkaygii intaasaan uga digay waxaan saameynay kugu yeelanaya akhlaaqdaaday bedelaya diintaaday dhaawacaya sharafkaagii dhaawacaya waxaan iska jooji waa iga diidayto markii dambe waxay tihi ninkii waa xanuunsaday markuu xanuunsaday gabar isagu uu dhalay ayaan idhihi tiri aabbo u qube aabbo u qubee waa xanuunsan yahay markii gabadhii aabbo u qubee aan idhi gabadhii wax ka dayi tiri walciyaadu billaah waa aabbe casharka markaan ka baxay gabadha halkaa ii istaagtay gabadhii wax ka dayi tiri gabadhii ma aysan sheeginay tiri waa iska aamustay waa ka cabsatay mar kale mar afaraad ilaa mar shanaad oo sidii oo kale uu ku sameeyey marka bal inaan ka furanahay iyo in kale kan rajo igama jirtee bal sharciga ii fiiriyay tiri marka waxyaalaha cajaa'ibta leh qaraa'ibta ah weligay isma lahayn cumrigii soomaaliya iyo waxaasoo kale ay ka dhacaya waa aabbe gabadhiisii wax ka dayay
qofaa ii sheegtana ma dhahayo iyagii oo isdacweynaya aniga ii yimid toos igu yimid marka waxaa weeye waxyaalahan yacni qalabkan shabakatul cankabutiya iyo facebooka iyo waxyaalahan la faafinayo akhlaaqdii mujtamaca way dileen mujtamaca akhlaaqdiisii way dileen way baabi'iyeen